waxay ku dhahayaan noloshu way adag tahay, noloshu waa murugo. Imaqal haddaba, noloshu waa sidaad adiga ka dhigato, mana murugoynaysid haddii aad aaminsan tahay qadarta Alle. mid kale, noloshu uma baahna qanacsanaan iyo dhoola-caddayn daacad ah wax aanan ka ahayn. ma ogashahay inaad maqasho runta? haddaba aan kuu sheego, dad ayaa jira aad adigana u malaysid inay aad ku jecel yihiin, maadaama ay maalin walba ku ammaanaan, maalin walba ay kula sheekaystaan. laakiin ii aamin, waxaa laga yaabaa nacayb uu adiga kuu qabo awgee inuuba saaxiib ka dhigta cadowgaaga uu adduunka ugu nacba asaga. kan murugaysanow, dhoola-caddayntu waa sadaqo. kan caasiga ahu, baarnimada janno ayaa lagu tagaa. midka dadka necbow, jacaylku wuu qurux badan yahay. kan dadka aanan ku kalsoonanow, kalsoonida naftaada waa muhiim. ugu dambayn, wax walba waa sidaad adiga u fikiraysid. waxaan u malayn jiray waayitaankaad weynaysid qofaad jeceshahay inay aad u xanuun badan tahay, laakiin waxaan ogaaday inay kasii xanuun badan tahay inaad weysid naftaada, qiimaheeda iyo farxadeeda. ragga waxaa ugu doqonsan midka daba dhigta gabar si aysan u khiyaamin. waxaana ugu caqli badan ragga midka gabadha siiya jacayl aad u tiro badan si aanan booskiisa loo buuxinin. waxay dhahaan saaxiibka dhabta ah waxaa lagu ogaadaa xilliga dhibaatada, laakiin maya, saaxiibka dhabta ah waa xaalad walba, waa meel walba, waa wakhti walba. saaxiibka dhabta ah ma dhegaysto wax walba gadaashaada laga sheego. saaxiibka dhabta ah waa midkan adiga kaama seyrin, inuu kaama seyra iska daaye, mar walba kula jecel wanaagga, kuu rajeeyo kun wanaag asaga naftiisa ka hor. subax wanaagsan kuma oranayo sidee tahay, waayo hadda ayuu kuu bilowday subaxaaga qoraxda badnaa. sidaa awgeed waan huba inaad fiican tahay. subaxdaada ha iloobin rabbigaaga, hawshaada iyo sababta lagu keenay adduunkan. ha iska fadhinin oo wakhtiga ha iskaga khasaarinin waxaana micno lahayn. dad badan ayaa nolosheeda ka tirtiray, taas micnaheeda ma ahan inaan nacbahay, ee maadaama ay diinteeda quruxda badan ii amrayso in ay nadaafaddu muhiim ii tahay, dhan jir iyo dhan qalbiba. dadka magacooda ka bilowdo xarafka F waa dad naxariis badan, wanaagga jecel, dadkana mar walba u rajeeya khayrka. waa qof degan. badanaa qofkan dadku waxay isku dayaan inay khiyaamaan, laakiin asaga wuu la socdaa, wuxuuna iska dhigaa qof iska jaahilsiya. imaqal saaxiib, cidnaha ka ogolaanin inuu kuu sheego inaadan waxba samayn karin. xitaa aniga, haddii aad leedahay riyooyin, waa inaad mar walba riyooyinkaaga ilaalsataa. haddii aad wax u baahatid ka dhabee, samee, si adagna ugu shaqee. ogow, daalku waa wax layska dhaadhiciyey ee maahan wax nool. shakhsiyaadka magacooda ka bilowda xarafka H ama xarafka H waa dad qurux badan, jecel xasiloonida iyo deganaanta, ma jecla dadkan buuqa iyo dagaalka. waxay kaloo aad u jecel yihiin meelaha doogga ah iyo cadceeda. haddii uu qof kaa tago kadibna aad weli wanaag u rajaynaysid, ii aamin, wuxuu ka khasaaray waxa adduunka ugu wanaagsan ee la helo. tusaalahan ku siiyo, haddii uu qol dhex yaallo fadhigana aad hal dhinac ka qabato, dabcan ma simmayso maahan. waa inay isla qabtaan laba qof si uu fadhiga u simno, kadibna laisla qaado. sida awgeed xiriir uguma jiri kartid heblaayo awgeed ama hebel awgeysa. xiriirka haddaadan adiga ku faraxsanayn, wax natiijo ah ma lahan. waxaana jira hal qaacido loogu talagalay xiriir walba: farxaddaadu waa farxaddayda, murugadaadu waa murugadayda, guushaadana waa aniga guushayda. ma jira aan ku taliyo iyo ii tali, laakiin waxaa jirta aan wada tashanno.